السلام عليكم كسر دوادا ورarkeena duhurnimo aniguna waxaan ahay Cabdiraxmaan Ilsar dhaawac iyo dhimasho ayaa ka dhashay weerar al-shabaab ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya sida warbaahinta dawladdu sheegtayna weerarka ayaa dhinaca dawladda waxa kaga dhintay 7 askari oo uu ku jiro sarkaal sare dhanka kale al-shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro badan oo dagaalyahana dawladda dagaalka ku jirta ee Ukraine ayaa wadamada reer galbeedku u ballan qaadeen hubkii ugu badnaa si ay isaga difaacdo dawladda Ruushka oo beriyihii u dambeeyay dalkaasi daandaamisay ballanqaadkan ayaa imanaya xilli madaxweynaha dalka Ukraine uu dhawaan reer galbeedka ka dalbaday hub uu isaga celiyo dhigiisa Ruushka tanina waxay u eegtahay hadalkiisii oo jawaab laga bixiyay Ruushku see wali kama hadlin hubkaasi inkastoo hore ugu hanjibay kuwa doonaya inay hubka siiyaan Ukraine balse Mareykanka ayaa sheegay inuu hubku ka dhamaanayo Ruushka oo muddooyin dagaal kula jiray dalka Ukraine koonfurta Kuuriyana waxa ay boqolaal qof ka daadgureynaysaa xaafado cooshada oo ku yaala caasimadda dalkaasi ee Seoul halkaas oo ay ku basbeeleen in ka badan 60 guri inkastoo aanay jirin wax dhimasho iyo dhaawac misna wali waxa la daadgureynayaa dadka aanu gaarin dabkaasi dawladda koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday in ay sameynayso dowlatus ciidan oo ay iska kaashanayaan dawladaha Shiinaha iyo Ruushka bisha soo socota dowlatuskan oo lagu sheegay mid xirfadda ciidanka kor loogu qaadanayo ayaa 10 cisho ka socon doona xeebaha dalkaasi daawade haddii aad ka mid tahay dadka warbixinteenan ka helay la wadaaga saxaabta siina sheer gareesi aan u soo badino